ugu dambeysay dib u dejinta xeryaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma ayaad muuqaalkan kala socon doontiin iyo qodobo kale muhiim ah fadlan muuqaalka dhameystiro si ay xogad badan ku dhaafin bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtaan jeclahay meel walba dunida ka joogtiin ku soo dhawaada qaxootiga Dadaab TV sidaad horaan ugu barateen arrimaha ku saabsan iyo warbixinada ku saabsan qaxootiyada caalamka insha Allah maalmahan waxaa diiradda saar doonaa qodobada aan diiradda saar doono wararkii ama xogagtii ugu dambeysay xeryaha qaxootiga Dadaab iyo dhaqdhaqaaqyada ay sameeyeen hay'adaha samafalka ayaan dul istaagi doonaa marka insha Allah waxaan ku bilaabi doonaa maalmahan waxaa loo shaqeynayaa baahanayaalka gaar ahaan xerada Dhagaxley waxaa loo shaqeynayaa baahanayaalka dadka oo baahanaha ay haysan kaarka raashinka ama dadka kaarka ka xiran iyo sidoo kale dadkii kaarka ku guuray oo kaarashoodii ku guuray dib u soo barakacay oo dib u soo laabtay dhammaan ayaa kaarka la siinaya marka dad badan su'aalo way soo weydiiyeen su'aalahaas ku saabsan kaarka xiran lama furaya kaar hadda xiran oo la furay ma jirto laakiin waxaa lagu siinayaa boono oo raashinka aad ku sii qaadatid kadib marna waxaa bilaaban doona tirikoob oo la tirikoobi doono dadka baahanayaalka ah oo boonaha iyo boonada cusub ama kaarka raashinka hadday ku qaadanayaan dadkaas ayaa la tirikoobi doonaa sida la sheegay haddii xogad iyo warbixino kale ka soo kordhaan insha Allah isla channelkan ay ka buugan doontiin waxyaabaha ka soo kordho arrimahaas insha Allah qodobka kale aan dul istaagi doono waxaa ka mid ah xogagtii ugu dambeeyay dib u dejinta xeryaha qaxootiga Dadaab iyo xerada qaxootiga iyo sidoo kale iyo Kakuma haddii Kakuma maalmahan dhaqaaq fiican ay ka socdo maadaama ay ka fiican tahay fursadaha marka loo eego dhanka xeryaha qaxootiga Dadaab Kakuma ay zaid loo baxayaa afalaayo iyo caafimaadyo iyo GFA iyo anisdad ayaa loo yeeray wax marayaan sidoo kale iidan Dadaab xeryaha qaxootiga Dadaab kama yareysto maalmahan dhaqaaq fiican ay socdo dhaqaaqaas oo sidoo kale GFA iyo INS iyo caafimaad dad loo sii ballamsanayo iyo xogo kale muhiim ah ayaa maalmaha shaqooyin laga qabaa iyo hay'adaha samafalka xasaas ee tahay dhaqaaqa caadi uu fiican yahay dhaqaaq dad badan ayaa la sii ballamiyay ilaa bisdaxaad ilaa bisha afraad sidoo kale dad ay su'aal soo weydiiyay isla buffest oo ku saabsan dad face ama sacrifice dad ma loo yeeray dad cusub ma loo yeeray gaar ahaan dadka buulabaqti ifatuul oo soo dad kamid ah qayb kamid ah ayaa ilaahay nasiibkooda haleelay oo ilaa 7 qoys ilaa 8 qoys ayaa saddex xerada Dhagaxley marayeen interview oo loo ballamiyay face to face sidoo kale ifa iyo haydheer aytan isla sidoo kale dadka noocaas amal qoys tirada inta lana ayaa marayeen fadlan haddii inta muuqaal soo gaartay subscribe like noo share muuqaalka si aan muuqaalada u soo badino